السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا waxaan ku qabanayaa taariikhdii ugaas nuur ugaas cabdi. ugaas nuur ugaas cabdi taariikhdu markay ahayd 1698 milaadiga waxaan lagu caleemo saaray baki waana loo dhamaa boqornimadiisana waxa uu ku dhashay ama meesha la yiraahdo halisu ee boorama u dhow. hooyadiina waxaa la oran jiray aamina bare. wuxuu nin aad u cad oo sunnayaalo waaweyn aadna wuu u dheeraa. wuxuuna ahaa nin geesi ah oo arrimaha aad u fiiriya. waxaa kaloo uu ahaa nin qani ah, deeqsiina ah, siyaasadana ku xeel dheer. dagaalkana aad ayuu u jeclaa. wuxuuna nin jar iska xuura oo u ahaa xagga dagaalka, cidna kama baqaynin. tolkiina aad buu u jeclaa. yakuna aad iyo aad bay ninkaasi u jeclaayeen. waxaa la sheegi jiray in markii uu boqornimadiisa qaaday uu damcay inuu sameeyo khiyaamo uu ku khaarijiyo boqorkii gaalada ee aalabuuray. gaaladu waa oromada, markaa maqashaan gaalo waa oromo, waa nimankii oromada ee gaalada ahaa. waa boqorkii gaalada ee aalabuuray. kolkaa wuxu uu haystay 40 nin oo fardafuul ahaa oo da-samo koowaad ay ahaayeen tii uu alla sheekh makaahir dheere ka baryay. waa 40kii nin ee mar walba dagaalka hormuudka uu ahaan jiray boqortooyadii ugaasyada. waxayna ugu tegeen meeshii goor habeen ah. waxayna ku yidhaahdeen boqorkii, waa boqorkii aalabuure, waxaan u soconnaa nabad. kadibna boqorkii aalabuure wuxuu yidhi, nabad waan jeclahay ee ila soo dega. dhammaantiina waxaanu nuu dhisayaa gabdho qurux badan. boqorkii aalabuure ugaaskii wuxuu u dhisay gabdhihiisii mid ka mid ah oo la yaqiinay oo ahayd faayo aalabuure, oo ahayd tii ugaas shirdoon iyo hiraabba u dhashay. wuxuuna kula heshiiyey inaynan dhulkoodii ku noqon. waxayna la deganaayeen ilaa ay dumarkii loo dhisay ay noqdeen 4 dhal. waa da-sama, waa 40kii nin ee ugaasku hoggaanka u ahaa, ee hogaamiyaasha u ahaa. waxaa gaaladii ay noqdeen abaanduulayaashii dagaalka oo la hoos dagaal. marka aalabuure iyo tolkii waxa ay guureen, waa ninkii aalabuure iyo tolkiisi waxay u guureen dooxada faafan. ugaaskii raggii la socdayna waxay kula heshiiyeen inayna u soo diraan, waxay ka weydiisteen waa boqorkii aalabuure inay usoo diraan muurqaadku waa awrka wax lagu rarto, iyo hablo alaabta rara. goobta ay deganaayeen waxay dooxada harawo, gaar ahaan buurta jaaji abaayo laydhaah ayay ahayd. sidii caadadu u ahayd, kolka ay soo gaadheen hablihii iyo awrtii, dumarkoodiina way soo kaxaysteenoo wayna soo guureen. hablihii loo soo dirayna way soo afduubeen, wayna ku soo noqdeen dhulkoodii hooyo. lo badanna way soo kaxaysteen oo way soo guureen. waxayna yimaadeen meesha la yidhaahdo dhoobo, halkaas oo ay reeruhu deganaayeen. hablihii soo reerayna dibbaa dadkoogii loogu celiyey ee gaalada oo rag baa loogu daray. in muddo ah kolkuu ninkii aalabuure warkii maqlay ee loo waran, wuxuu soo diray ciidan weyn oo wuxuu yidhi nimankii ka daba tega. marka ciidankii ugaas ku watay reerkii samaroon aada may gaadhay, laakiin ciidan buu watay meelaha bartanka ayuu degay. kadibna tega buu ku yidhi boqorkii inta aynan dhulkoodii gaadhin. kolkuu ugaaskii iyo dadkiisii buurta dhoobo hoostooda ayay dhufays weyn ka samaysteen. kolka ay colku usoo diray aalabuurena inaanan waxba ka qaadin garteen,
markay arkeen way baqeen waxayna ku noqdeen dhulkoodii kolkaas ugaaskii lo-dii badnayd wuxuu u qabay gadabursigii markaasi meesha la deganaa uu lo-du soo qaaday gelin bayne buurtaasi dhoobo hoostooda ku noolaayeen oy samaysteen ololo badan iyo tirtirsiin badan haddana waxay u soo guureen xagga oogada ee koonfur in yar kadib gaalkii Aalaboora wuxuu soo diray col xoog leh wuxuuna amar ku siiyey inay boqorka ugaaska reerkiisa inay saq dhexe tagaan oo ay miraan ugaaskuna markuu maqlay hugufkii iyo qayladii fardaha wuxuu ka soo baxay aqalkiisii oo faraskiisii la oran jiray Bulaale u fuulay kolkaasuu muddo idil isaga iyo dhowr nin oo colkiisa halkaasi ku wada dagaalamayeen markii dambena ay ka bateen colkii halkaasna waxay ku dileen 9 wiil oo ugaas nuur dhalay kolka isagii iyo labadiisii inan ee la oran jiray Shirdoon iyo Hiraab waxay tageen meeshii gadabursigu ololaha iyo xoogaba ay ku sameysay ay ku lahaayeen waxayna uga warameen wixii dhacay si degdeg ah ayay diyaar u noqdeen waxayna ka daba tageen colkii gaalaha ee Oromo waxayna gaadheen meeshii ay dadka ku laayeen meel u dhow halkaasna dagaal adagay ku dhex maray gaalihii iyo gadabursigii kolka gadabursigu way ka xoog roonaadeen gaalihii oo si fool xun ayay u jabiyeen nin keliyana kama bixin wax yar kadib kolka ay taariikhdu ahayd 1733 milaadiga wuu dhintay ugaas nuur wuxuuna ku aasan yahay buurta la yiraahdo buur cali taariikhdiina intaas ayay ku dhantay waa taariikhdii ugaas nuure insha Allah hadduu alla yiraahdo taariikhda nagu xigi doontana waxa weeyaan waa ugaas Hiraab oon leenahay insha Allah inaan qaybta kale aan ku soo qaadano waxaan uga taginaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.